walaaltinimada ka dhaxaysa Turkiga iyo Soomaaliya ma walaaltinimo wanaagsan baana miro nocma ayay dhashay ma ka sugi karnaa inay ka sii hagaagi doonto sidan mise inay ka xumaan doonto ba qaybtan waxaan rabaa inaan u guda galo walaaltinimada Turkiga iyo Soomaaliya qaabka dhaqaalaha bulsho kobcinta iyo amniga ba qaybta koowaad waxa weeye qaybtii bulsho kobcinta insha Allah ku soo dhawaada barnaamijka quruxda badan oo ni diyaariyay maanta لحية تمصنا أي ما تكسر ورقة مالنتي وإردوغان يحاس كيسة مقدشة كده جاينا ومدحوينه شيخ شريف سودوينا صور كي ضدك قلبي قضى تشاب صدي إردوغان يحاس كيسي والله بيرى الصومالي عرورة وأنا فقط ضرر هيسا ومالتشين كذا ربط كوهيا وصور كي لا كذا الدونكم وصور كي ولا تنمذا كبلا متي تركيا يا الصومالية لحية تمصنا كهر waxyaalaha iska fudud ee Turkidu noo sheegeen oo aan ku xitaan garanayn waxa kamid ah inay dhahaan Soomaaliya waa dhul aad u kheyraad badan oo nimco Ilaahay ku beerayba hase yeeshee dadka meesha degan ayaa ka dhiman tahay aqoontii iyo cilmigii ay ku soo saaran lahaayeen kheyraadkoodaasna waa qaybta koowaad aan ka qayb qaadanaa anaguna inaan cilmigooda ku kordhino sidee wax u soo saaran lahaayeen naftoodan wax u tari lahaayeen baran tayada iyadu Turkida waxa weeye aqoonta iyo cilmi kordhista waa taan wax Soomaaliya ugu soo biirin doonana waxyaalaha ay ka qabteen falkaasna waxa kamid ah laba hay'adood oo waxbarashada dadka Soomaaliyeed ka qayb qaadan doonto kobcinta maskaxdooda ta koowaad oo ah tikadan waxay ku faantaa inay kun gabdhood oo agoona ee waxbaraan waa hay'ad balaaran oo Turkidu iyagu adduunka dhan u diraan waliba gaar ahaan wadamada gaajada sida Gambia iyo Afrika fara badan iyo ilaa iyo Asia xataa meel badan bay u diraan Soomaaliyana markaa waxay wax ka qayb qaataan inay siiyaan iskuulada buugaag iyo kuraas iyo wixii wax lagu baran lahaaba waxay kaleena ku faanaan inay gabdhahan agoonta ee barayaan aqoontooda oo ah afka Turkiga hiddada iyo dhaqanka Turkida iyo taariikhdii ama sooyaalkii Turkida waxyaalaha ajiibka waxa kamid ah markaa waxaan loo doortay in gabdha agoona la soo urursado ilaa kuna oo waxbarashadii dhameed la sheegay ee noqotaa kaliya afkii hiddada iyo dhaqankii sooyaalkii Turkida muxuu u soo kordhin karaa ummadda Soomaaliyeed waxa ula jeed laga leeyahay gabdhahaas agoonta in la soo qabtay oo aqoontaas kaliya la barayo maaha hadda maadi ee ku shaqo tagi karaan hadhow haddii taa Turkiga tagaanba ma waxaad u maleynaysaa inay ka shaqeyn karaan warshad inay dhaqtar ka shaqeyn karaan cilmiga hadda ee tika soo bandhigayso mid lagu shaqo tagi kara maaha laakiin waxa la moodaa inuu yahay kuwa qaarkood oo wadanka wixii soo kobci lahaa ee danyarta la dulmiyay meel laga dhaqaaqay ama waxba haysanba la yeelan lahaa maskaxdooda la qabsan lahaaba inta kaliya kuma eeka hadda waayo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xitaa laftigeeda oo 2009kii argagixisada daraadeed u shaqo beeshayba ama wax qabadkeeda markaa joogsatayba ayaa la moodaa inay ka faa'iideysatay ama u soo kordhisay ba aqoonteeda hay'adan tika oo 22kii ama 2022kii ka bacdi u bilowday inay u deeqdo carpeting iyo plumbing waxyaalahan farsamada gacanta iyo biyo mareenka iyo bulaacadaha iyo qalabkii lagu dhisi lahaa iyo sida loo dhisi lahaa iyo iskuulada loo sameyn lahaaba ayay ku caawisay ayadoo run ahaantii tusaysa xitaa baahida dawladda Soomaaliya inay aad u liidatay ilaa haddana 2022 waxba kama soo wareegin ba waa 4 sano ka hor ee dhaawacii gaaray 2009kii ee ilaa inta ka kici kari weeday dawladda Turkiga oo run ahaantii iyaduna aad ugu farayareysatay waxyaalaha farsamo yaqaannimada sida wax loo sameeyo qacmaha looga sameeyana ee xitaa u guuri weeday inay dawladdu wax ka wanaagsan u soo diri weeday laakiin hay'ad yar u dirtaa wasaaradda dhan oo ku dhahdaa waxaad u deeqdin kaliya workshops meel yar u design gareeya qalab yarna siiya siday wax u sameystaan taasna waxa laga arkaaba miraheedii inaysan waxba ka dhalinba ilaa hadda Muqdisho markuu roobku soo doo dhulka dhan baa isku daata ilaa hadda biyo mareenkii baa xitaa waxba laga sameyn karin laayeen ilaa hadda suuqa waa laga arkaaba inay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada aad hooshadu u liidatana taasna waxa weeye dawladda Soomaaliya toos u qaadan karto laakiin san ogaataa inay Turkidu
iyaku taas wax badan ummadda Soomaaliyeed uga qabanba waxaa ka muuqata inuusan Turkigu toos u sheegin laakiinse waxyaalaha uu Turkigu adeegsanayo hay'adahiisa inay iyaku oofinayaan qorshaha ballaaran oo ah 20 sano 30 sano ka bacdi sida Soomaaliya u ekaan doonto oo ah inay soo bixi doonaan jiilal cusub oo gabigoodaba qaatay qadiyadii Turkinimada oo ku dhisan diinta Muslim baanu nahnay qadiyad ahaana ideology ahaana waxaanu nahnay dad Turkiya waayo tika web page-keeda toos waxa ku qoran ba inay iyagu ku dhiirigelinayaan inay education-ka ama waxbarashada Soomaaliya qaadato kan Turkiga curriculum-ka gabdhahan quruxda badan la soo sawiray kulle maaha kuwii agoonta inkastoo gabdhaha Soomaaliyeed mar walba wada qurux badan yihiin laakiinse waxay u egtahay kuwa models ah laakiinse haddana waraysigan waxa ka muuqata inay fasaladaas laga wada buuxin doono gabdho dhowr sano gudaheeda af Turkiga 100% ku hadlaanba waraysi laga qaaday qaar hore waxa xitaa sheegayaan inay gabdhaha Soomaaliyeed isku faanaan dhexdooda ileeyihiinna anu waxaan ku bartay 2 sano gudaheeda waxaan bartaa Turkiga xitaa xilligan guriga joogo waxaan daawadaa musalsalo Turki ku baxaya oona waliba turjumaan hoosta lagu soo qoreyna waxa lagu dhiirigelinayaa xitaa inay free time-kooda waqtiyaasha musalsalka Turkiga daawadaan taas oo iyadoo laftigeeda ka dhiganta marka daawatid musalsalkii Turkiga iyo filmaanta Turkiga inaad qaadatid xitaa inspiration saad u labisan doonti sidaad u ekaan doonti guriga degi doonti waa iyadoo laftigeeda waxa weeye waa doctrine ama waxa weeye tababar maskaxiyan lagu diyaarinayo inaad noqotid Turki system-kan gurgurashadana ha yareysinaya Turkidu wadaana inaad aragti waddankaagi dhaqaalihiisa xog iyo xooli lagu boobayo airport lagu dhisayo sanado gudaheeda iyo haddana jaamacado iyo iskuulada farsamaha oo laba xaba ka badnaanba oo waliba u badan yihiin kuwa lagu deeqay kaliya miisas iyo kuraas oo haddana lagu xujinay afka Turkiga lagu baranayo kaliya ma aha wax iska baqtiyaan nasiib ee waxa weeye wax systematic loogu talagalay aragti dheer laga leeyahayna Turkida haddii moodaysid dad iyagu iska ciyaar ku yeeshay waxaan maanta haystaan waxaad ilooday oo u baahan xasuusin markii Cusmaanida la burburiyay inay 80 sanadood ku jireen qabateenka maalidowta ka baxayna oo hadda u ogolaatay inay technology-gan drones-kan iyo cilmigan sare haystaanba ay samaystaan 80 sanadood iyagu ku jireen qabateen oo garanaya degdega baahida ay u qabaan marka laga furay qabateenkii inay si degdeg ah u noqdaanba wadamada technology-yaasha khatarta ah Soomaaliyana marka nasiib daro maaha inay maanta Turkigu iyagu xagga aqoonta Soomaalida kala liidayso waliba anagu og xataa dalkan Burkina Faso oo markuu Faransiiska iska eriyay 3 sano gudaheeda ku noqday wadan dhisan isagoo la heshiiyay Ruushki anagu marka maanta dhahayna walaalaheen 16 sano la joogaana ujeedkada muxuu ahaan karaana maqaalkan laga qoray waxay soo sheegeen dadka aqoonyahanku inay af Turkigu noqon doono luqadda labaad ee ugu hadalka badni Afrika Soomaaliyana haddadaanba 100,000 oo Soomaali ku hadlaan af Soomaali buuxa oo communication dhamaystirna lagu wada hadli karana luqadda koowaad ee Afrika lagaga hadlo kulli waxay uga jeedaan Ingiriisiga labaad kala markay noqonayaan waxay boos ka qaadayaan Faransiiskan filaya ama Carabiga Faransiiskan waliba laakiin se dad hamigoodu ku yahayba inay Afrika ka dhigaan afka labaad ee laga hadlo uu noqon doono Turkigu waxay toos ku tusaysaa inuusan ula jeedkooda ahayn kaliya aan adiga dhaqankaaga iyo hidadaada aan ku ixtiraamo oo aan ku barana wixii aan ku bari karo wixii kugu fudud ugu dhaqsada badan wadamadan Yurubiyaanka kale markay imaanayaan Afrika waxay isku dayeen ku xitaa inay haddii aqoon ku barayaan inay ku dhahaan bal aniguna af Soomaali kuma hadliye adiguna kuma bahdashiba af Finnish Ingiriisigan naga wada dhaxeeya oo internationalka ka xitaa ku barta anigana wuu igu culus yahay adna ku culus yahay laakiin at least adduunka meel walba ka shaqatay karta kuna baran kartana dadka laakiin maanta af Turkiga ku barta ama Turkiga ama Soomaali u shaqatay karana wadamada kale waxay noqonaysaa inay af kala bartaan waa Ingiriisigiina way ka guureen Soomaaligoodina waxa la yiri waana Turki ka hormarisiinba ugu dambeyntina waxaan ku soo gabagabeynayaa aqoonta ugu wanaagsan ee la oran kara Turkidu Soomaalida uga faa'iideysa waxa weeye hay'adan jaamacadda faculty-ga ee Furan oo lagu magac daray Erdogan oo isaguna uu yiri gabdhaha iyo inamada xaggaas u shaqo tagaya oo raba inay soo bartaan caafimaadka waa qayb ka mid ah jaamacadda oo iyagu ay meel geliyaan toosna Erdogan isagu magaciisii lagu caleemo saaray wuxuuna ku xujiyay dadka meesha jooga in 2 sano gudaheeda
ku hadlaan af turki dhamaystiran oo buuxa qoraal iyo hadalba hadday ku hadli kari waayaanna in iskuulkaas markaas laga eriyo oo san la siin shahaado waxay ka dhigan tahay haddii 2 sano adoo dhiganayay oo sanad kaliya kaaga dhiman tahay oo haddana aad afkii ku baasgareyn kari wada ama yar kaaga dhacdo in laga hormarinayo afkaas oo ku filgareynaysid waa ayaan darada ummadda Soomaalida haysata waa ayaan darada u baahan in isha lagu soo taagaa Turkiga iyo Soomaaliya walaaltimo nooc ma ay leeyihiin qaybta labaad waxaan ka dhigi doonaa haddii alla idmo qaybta amniga militariga iyo booliska iyo qaabka Soomaalida Turkigu walaaltimadiisa uga faa'iideeyay amnigooda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh